بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلaahay subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta waxa uu amray sanadkii inay hal bil ka soomaan. Nin ayaa rasuulka u yimid sala allahu calayhi wasalam, acraabi ah. Markaa uu yidhi, nin aad soo dirtaa noo yimid, wuxuuna noo tilmaamay inaad nebi tahay, ma runbaa? Markaasuu rasuulku, nacam, waa runtii. Allihii ku soo diraan ayaan kugu dhaariyey buu yidhi, ma ilaahay baa ku amray subxaana wa tacaala arrinta noocaas ah? Qaala allaahuma nacam. Ninkii wuxuu yidhi, rasuulka ilaahayow, ninkaad noo soo dirtay wuxuu noo sheegay inaadna soo amartay inaan maalintii tukano 5 salaadood habeen iyo maalinba, ma runbaa? Haa buu yidhi nebiga, ilaahii ku amray inaan salaado tukanaan kugu dhaariyey, ma ilaahay baa ku amray subxaana wa tacaala? Qaala allaahuma nacam. Waa sii waday ilaa ramadaankii la sheegay, ma ilaahay baa ku amray inaan sanadkiiba hal bil ka soonno? Qaala allaahuma nacam. Riwaayad kale waxay tilmaamaysaa inuu saxaabigii yidhi, nin acraabi ah oo rati saaran ayaa nebiga u yimid. Masaajidka ayuu la soo galay geeliisii, wuu tujiyo, wuu fadhiisiiyey, wuuna dabray, wuuna jilib xiray. Markaasuu intuu dadkii dhex yimid ayuu yidhi, ayukum muxamed, warkiineebaa muxamed ah? yaa muxamed ah? Rasuulku wuxuu yidhi, ana. Riwaayad kale waxay leedahay, saxaabadu waxay dhaheen, haada arajul, ninkaa cad ee dhex dangiiga saxaabada dhexdooda ayaa muxamed ah. War aniga maxamed kasta ma doonaye ibni cabdilmutalib miyaa buu yidhi ninka. Markaasay dhaheen, rasuulku uu maqlo yidhi, haa ana, haa ummu, kaalay iga qaado. Wuu u yimid, markaasuu su'aalihii haddoo kale weydiiyey, anashuduka billaah, ilaahay baan kugu dhaariyey, ma ilaahay baa ku amray inaan 5 salaadood tukano 24kii saacba? Qaala allaahuma nacam. Ilaahay baan kugu dhaariyey, ma ilaahay baa ku amray inaan xoolaheenna saka ka bixino, laga qaada taajiradeenna iyo fuqaradeenna lagu celiyo? Qaala allaahuma nacam. anashuduka billaah, ilaahay baan kugu dhaariyey, ma ilaahay baa ku amray inaan bisha ramadaan kaa soonno? qaala allaahuma nacam. Markaasuu yidhi, aamantu, waan rumeeyey wixii lagula soo diray, anigana rasuul ayaan ahoo adi kaa dambeeya, adaan erka kaa ahay, qoomkaygaan u tegi doonaa haddii rabbi idmo, markaasaan wax allaala wixii xaqi aad ii sheegtay ayaan markaa kuu sheegi doonaa. Waan u sheegi doonaa oo waan guubaabin doonaa oo xaqan fari doonaa oo diinta allan ku adkayn doonaa. Xaaladda ayuu markaa tilmaamay. Haddaba walaalayaal, soonka ramadaanka ayaanu ku jirnaa. bilihii qiimaha badnaa waa bishii ka mid ahayd, waa bishii dembi dhaafkii maqfirada, waa bishii naxariistee, ma aha bishii qaabdarada loo soconaayey, ma aha bishii xumaanta la galaayey, ma aha bishii ilaahay la caasinaayey, ma aha bishii salaada laga hurdaayey, ma aha bishii bakhiilnimo la noqonayo wax bixinta laga adkaanayey, balse waa bishii ilaahay loogu dhowaanayay subxaanahu wa tacaala. Rasuulka sala allahu calayhi wasalam bishan marka la gaaro wuu xanjeeran jiray, wuu u diyaargaroobi jiray, waxyaabo fara badan oo khayr ayuu kaga faa'iidaysan jiray, rabbigii ayuu u dhowaan jiray, cibaadada ayuu laalaabi jiray. saasaana loogaga baahan yahay, waayo bishaan ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo manigiisa shayaadiintii oo dhan baa nala ka xirxiray. bishaan ilaahay subxaana wa tacaala qiimaha ay leedahay darteed samaawaadka albaabaheedii baa naloo ballaqay, kuwii naartaa nala ka xirxiray, kuwii jannadaa naloo wada furfuray. ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf, maqfiro, naxariis, naar xorayn ayuu nala dul taagan yahay. walaalayaal, bishaan waa bishii khayrka, bishaan waa bishii wanaagga. 10kii dhexe ayaan weli ku jirnaa, 10kii dhexe ayaanu ku jirnaa oo 2 aan ka marayno. maanta bisha ramadaanka waa 12. waxaan filayaa inuu sii cararay ee uu sii tegey. waanu soo tilmaanay, marti ayuu ahaa, in badan baanu sugaynay. waan jeclaan lahayn inuu wax badan nala jooga walaalayaal, waan jeclaan lahayn naxariista iyo iimaanka aan helnay maanta waan u jeednaa, baraaraha iyo khayrka aan ku jirna waan arkaynaa, waxyaabaha khayrkee socda waan u jeednaa. sidaa darteed ayaa bishaan ilaahay subxaanahu wa tacaala manigiisa iyo galladiisa uu nagu siiyey, uu fursad nooga dhigay
inaan uga faa'iidaysano. ninka dembiilaha ayaa towba keeni karo, albaabkii towbada u furan tahay. war kii caasiya rabbigii u soo noqon kara, war ku naar mutaysto alla ka xorayn subxaana wa tacaala. habeen walba ilaahay cutaqo ayuu leeyahay, habeen walba dad uu naar ka xoreeya ayuu leeyahay, habeen walba dad ilaahay khayrkii wanaagga uu ku camimo ayuu leeyahay. saa darteed ayaa caawa haddaan ka faa'iidaysan weyno, habeen dambaa la rabaa inaynu ka faa'iidaysano. habeen dambe haddayna dhaafto haddana habeenka ku sii xiga marnaba inaan la kala joojinin, in mar walba ilaahay laga dalba dembi dhaaf, in mar walba ilaahay laga codsado khayr iyo wanaag, in mar walba ilaahay la tuugo subxaanahu wa tacaala. waayo bishii ramadaan waaye, waa bishii naxariista, waa bishii khayrka, waa bishii makfirada, waa bishii dembi dhaafka, waa bishii ilaahay ummadda uu cisaynayay subxaanahu wa tacaala. waanu arki doonaa mawduucyada kale ee noo soo socdaa. nasri lama heli jirin inta badan ilaa ramadaan maahane. sidaa darteed ayaa ramadaan bilaha kale aynana laga mid ahayn. bilaha kale markay dhashaan nebigu saxaabada wuu ka aamusi jiray, amaa markuu ramadaan dhasho waa u hambaliyeyn jiray, waa u bishaarayn jiray. bishiinii baa timid buu oran jiray, bishii khayrka waaye ayuu dhihi jiray, bishii wanaagga la kasbanayo waaye ayuu dhihi jiray, bishii ilaahay agtiisa cizada iyo karaamada iyo khayrka laga gaarayay waaye. xaaladaasuu rasuulku ummadda u tilmaami jiray. habeenka ramadaanka uu kow yahay ayuu oran jiray, munaadi ayaa cirka ka soo naadiya oo oranaya, yaa baaqiya alkhayri aqbil, war midka khayrka jecelow kaalay. bishii khayrka sow ma aha, war hurdada ka soo kacisoo degdeg, war rabbigaa u imow subxaana wa tacaala, war albaabkii towbada way furan tahay, war albaabkii khayrkii nafaxaadka ka imaanaya raxmadda alle way furan yihiin. yaa baaqiya alkhayr aqbil wa yaa baaqiya ashar aqsir, war sharoolow joog, warkan heeska jecelow joog, warkan xanta jecelow joog, warkan xaaraanta jecelow joog, war inuu dad dilo jecelow joog. wa yaa baaqiya shar aqsir, adigana gaabsoo lugaha dhulka dhig, lugaha dhulka dhig. bishii sharta ma aha, xumaanta xasanaadka sida loo laalaabayo yaa sayi-aadka loo laalaabayaa. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu oranayaa, camal kasta ibni aadan qabto asaga iskaleh ilaa siyaamka maahane, ana iska leh, anaa u abaalgudaaya. waayo tacaamkiisa iyo sharaabkiisa iyo shahwadiisa ayuu min ajli uga tegey. idan fa inahu lii wa ana ajzi bihi. hadday sidaa tahay uu dartay u dhaafay, anaa soonka iska leh, anaana abaalkiisa bixinayo, anaa soonka iska leh, anaana axadkaa abaalkiisa siinaya. war ka warrama axadka ilaahay abaal u gudaya subxaana wa tacaala. war qofka ilaahay yidhi ani korkayga ayay ahaatay abaalgudkiisa ka warrama, say xaalkiisu noqonaya? muxuu ku abaalgudi doonaa ilaahay? khasaa'inta samaawaadkii arlada gacantay ugu jiraan, lahu maqaaliidu samaawaati waalardi. ka warrama axadka ilaahay abaalkiisa uu siin doono maalinta qiyaamaha, gacantiisa uu ku abaalgudi doono, gacantiisa uu ugu siin doono ujrada iyo wixii marka uu kasbaday. ilaah wuxuu tilmaamay inaan dad akhlaaq ah leh noqono. wuxuu tilmaamay haddii nala caayo oo nala ku edab daroodo xataa xilliyada ramadaanka aysan ahayn inaan iska dembi dhaafnoon ummadda u cafino. waxaana loo ogolaaday inaan aargudan karno. laa yuxibu allahu aljahra, ilaahay ma jecla jaharka iyo xumaanta lala jahro ilaa man dulim, qofkii la dulmiyo maahane oo markaa aarsanaya. waxay u dhigan tahay wajazaau sayi'atin sayi'atun midluhaa. qofkii xumaan kugu sameeya, abaalka aad u gudayso xumaan ha noqdo, laakiin ha u miisin, ha uga badinin. intuu asaga ku gaarsiiye ama uu kugu caayo oo kale ku caay, intuu ku gaarsiiye oo kale ka aarso. wajazaau sayi'atin sayi'atun midluhaa, faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah. qofkii cafiya oose iska dhaafo oo asagoo aargudasho loo baneeyey haddana dulqaata, ajirkiisa alluu ka helaya subxaana wa tacaala. faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allaahi, ajirkiisii abaalgudkiisa alla korkiisuu saaran yahay. ka warrama dadka ilaahay abaal u gudaya subxaana wa tacaala. walaalayaal, soonka ha la hagaajisto, xumaan iyo caay iyo aflagaadan yaan lagu afurin. maanta waxaanu maraynaa maalinteedii 12aad. waan arkaynaa inuu gabagaba sii marayo. walaal waan u jeednaa, shalay buu yimid, maanta intaan marayno cumrigeeni saasuu usii taqsiiraya. hala dadaalo, ilaahay ha laga baqo subxaana wa tacaala, diinta ilaahay kor ha loo qaado. war qofka ilaahay abaalgudaya ka warrama, faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah. ajirkiisa alla dushiisu ahaaday subxaana wa tacaala. cafinta wanaageeda, qofka la dulmiyey ee cafiyey asagoo kari kara inuu aarsado, cizi buu ilaahay u siyaadiyaa subxaana wa tacaala. cizi buu ilaahay kuu kordhinayaa cafinta. ilaah subxaana wa tacaala asagaa cafu ahee, cafin badana ahee. qofkii asaga saasoo kale addoommada u cafiya, ilaahay khayr iyo wanaag buu siinayaa. nin baa la xisaabay buu yidhi nebiga, waxaa laga waayay wax xasanaad ah iyo wax wanaag ah oo aan ahayn inuu ummadda la mucaamali jiray. ummadda ayuu cafin jiray.
jiray. mar allaala markuu wax u deymiyo ee deynta ay bixin waayaan midka mucsirka waa u dulqaadan jiray. ninka mataqaanaa muysirka wuu sugi jiray, kan muculayskana waaba ka dejin jirayba. ilaahay muxuu yidhi addoonkayga igama cafin badna subxaana wa tacaala, aniga ayaa mataqaanaa ka cafin badan. war tajaawazuu canhu, ka cafiya malaa'igay xumayaalkii u sameeyey oo dhan. war ka tirtira kaxeeya jannada geliya. war ka tirtira wax allaala wixii xumaana uu sameeyey. addoommada ayuu saamixi jiray, addoommada ayuu cafin jiray. ma iscafinaa maanta? mase waan isku dhibaataynaa, waan isdulminaa. qofka iska daa wuxuu asaga kugu sameeyey inaad ka aarsato uune waaba la dulminaa, waa lagu gardaroona, dhib baa la gaarsiinaa. ummaddii muslimiinta waa la dhibayaa maanta. xaaladayaan la samayn. war muslimka dhabta waa midka gacantiisii iyo afkiisa laga ammaan helo. muslimka dhabta ah waa midkii muslimiintu ka badbaadaan yaddiisii afkiisa. ummadda afkiisa ma gaarsiiyo, gacantiisa ma gaarsiiyo, dhibaato ma gaarsiiyo. khayr iyo wanaag buu u sameeyaa, abaalmar fiican buu alla xaggiisa ka leeyahay. saasaa ilaahay jecel yahay. xaaladaa sameeya. waa sifooyin aad iyo aad u wanaagsan cafinta. ilaa caaisha waanu arki doonaa markan 10 dambe gaarnee rasuulku uu dhihi doono waxaad dhahdaa allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii. allaha cafinta jecelow iska kay cafi. rabbow isaamax, rabbow ii dulqaado, xilmigaagii dulqaadkaaga iigu dulqaado. saa dheh oo ilaahay ka bari subxaana wa tacaala. idan walaalayaal ramadaan baan ku jirnaa, naxariis baa imaanaysa, naxariis baa socota, naxariis baa qubanaysa. ilaahay naxariistiisa ha laga faa'iidaysta subxaana wa tacaala. waayo ka dambe sida lagu gaari doonaa lama oga. midkan basaan ku dhammaysan doono qaadirkaa garanaya. bacdamay sidaa tahay walaalayaal aan noqono dad aadaab leh oo akhlaaq leh. soonkiina ilaalsada, salaadihiina ilaalsada, camaladiina fiican ilaaliya. ummadda ha isi saamaxaano. war ha la iscafiyo. war dad walaala ha la noqdo. war dad is-ixtiraamo ha la noqdo. war dad maxabe iyo kalgaceyl ka dhexaysa ha la noqdo. dagaalkii dhibaatada iska daaya, xaqdiga xaasidnimada iska joojiya. ummadaha dhibka lagu hayaa ka daaya. gabarh kastoo muslimadoo xijaaban ixtiraama, xijaabka ilaahay dusheeda saaranya ku qadariya, ku qiimeeya. wiil walbood aathaar islaami ay ka muuqata tixgeliya oo khayr iyo wanaag u sameeya. oday walboo ku ciroobay diinta alla ixtiraama oo dulqaata. ciyaalka yaryarkaa u naxariista, xayawaankii xoolaha u dulqaata, u naxariista. khayr iyo wanaag baa la gaarayaa. ilaah xaq ayaan ka baryayaa inuu xaqana waafajiyo. haddaba ilaahay aad ha loo baryo si nasri muslimiinta uu u siiyo, guulna ay markaa u helaan. sidaa darteed walaalayaal dhammaanba waxaan alla ka baryaynaa inuu khayrkiisana siiyo, in khayrka uu nagu sugo, in camalkii soonka naga aqbalo, jannadiisana fadligiisa ilaahay nagu geliyo subxaana wa tacaala. inta ka horaysa intaa iyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu.